marka koowaad waan ku hambaliyeynayaa inaad maanta daahfuraysaan casriyeynta hawlaha iyo xafiisyada dowladda hoose ee Hargeysa. barnaamij aad qurux badan baa keenteen sida rag igu hore sheegay fulintii waa inuu wada guntanaa annagoo garab taaganahay idina isu nagsiida. talabaad dowladda hoose hawl badan baa u taala iyadoo sidaa tahay oo hawlo badan qabateen intuu bogaadina si ragga hore sheegay oo wadda leh oo magaalada leh oo dhib badan haysta haddana hawlo badan oo kale way noo yaallaan. markaa soo kooban 3 wax oo ballan qaadeen oo markii aad doorasho gelayseen ballan qaadeen oo xisbiyadu 3 xisbiyo magaalada la ballan qaadeen waxaynu doonaynaa in la taabto. dhammaan berigaa intii noo dooraya ordaysay xisbi kasta ahaadooda waxaynu ballan qaadnay oo xisbi waliba iyo xildhibaano ballan qaadayay ama dhowr jeer aan meel ka ballan qaaday inamadaa aan wadaha waxay keeni doonaan waxaa kale ciro iyo faysal rag badan ka maqlay hawshaa wada in magaalada loo samayn doono garoomo fiican oo dhalinyaradu ku ciyaarto. garoomada waan ka rabaa 5 sano waa maraysa dadna wuxuu ku ballan qaadaan ee axad gula waa inay fuliyaan. 2 wax kaloo berigaa ballan qaadnay in magaalada aynu u samayno meel dadku nafisaan baarki meel dhir leh la luguleeyo 5 sano maraynaa beertii xiriirada in sheekh darbi waa waashi marayaan meel kale inuu lumada soondaa dadka webi iyo carruurta meel ku mutaxsadaan ee taawid ka suuqna oo ballan oo taala tima cadu magaalada saawin ballan qaad dad doorashada way iman doontaa wareey timaado inkastoo aad u sheegtay dadka iyo qolaha baarlamaanka oo doorashooyinka aad arjumaasan dirtay oo macquul ah haddana doorasho way iman doontaa garabada la sugaya. تصدحات مقالة قاعدكم كبت وضب هران ومرينا درجة نوع وكويد لحق سوتشري وعليلي إن باورت المقالة مرسالة كهربائية والله الله بيضا وضدك أنت الوين سي أنت باورت وطا مرة والبنت الوين صابغا إن واحد بدا السوق قيل حقنا يقبسين أنت باورت وطا وقف كي الوين لها horta qofka dhexda carruus kala daayo kii xoogaasa umra ay adag tahay waxaan isku ogeyn in la sameeyo baabuurta hab loo sameeyo basaska kuwa xamuulka kuwa yareera la karaysto meel la dhigo dhinacyaa kala socdaan basku meel qofka isla taago qof yar ama qof jilicsan ama qof reemiya basoo raacaya halku socday garan maayo meeshu doon isu taagi maayo halku doonaa uu dhigayaa 5 sano waxay inuu dhigno bas halkaas istaagaya kuwa halkaas marayaan kuwa xamuul halkaas marayaan dadku halkaas marayaan inteena cidiga inuu kala sifeeno de wax dowladda hoose saaran iyana wali waa ugu baaq wadooyin dhisnay horumar badan waynu samaynay magaaladu way weynaatay qodob kale qorshaha magaalada imika waxaanu samaynay wasaaradda horumarinta dhulka wasaaraddaas qaranka oo dhan baa la doonaya inay dhulkiisa dawaagto oo sidii halkan uu ka sheegay gudoomiyaha maxkamaddu dhulkii qaranku maamulo oo laga dowladda hoose ilaa halkaas leedahay isaga maamul. iminka dowladda hoose qorshayaasha ay duwaydo doona waxa kamid ah magaalada waynu fidinaa 4 bilyan iyo magaalo walba tu walba nin waliba beertii wax ka saar lahaa bulan ugu bedel waa bulan ka qaaliya maxay nagu keentay wadada laamida dowladda hoose dhisay waa 5 kilomitir nin wal oo 5 kilomitir ka dhistay xaafad bay fulayay wada ay keen wado ay keen booliis ay keen leyd ay keen biyo تدي سلسلة مقالة تابين غرسة تعال ولا كنا عالم كسان كنا صعوه هذا السان كنا نروح على منا ده يسوي جاي مقالة إذا وسيله ميجي نقول أنتوا تصاصق الجارة دقايق تتروح على وضد يلا كي يسكول كي أمي جاي يسوي جارسي وهو العرس مكان مقالة اللي سؤاليه ومقالة اللي سكول السو ومقالة اللي يرتم مال بقى مشترى مال باركها مال وشها تيجي مال مركب دولا لنواصل إلا حوالي نقول درا ولا يبص حواليه وحنا ذلك قوة عالم هيك سورتون الكيسين ولا حواليه هالليبي أيوة شرعية يبي أدوك مالك ولا عدة يا تذكر التداوي حكولي أظن لوضع أقل جلسه كان إفك وايري هذا دوتي كاس كل هذا سواك آخره
marka mas-uuliyiinta haddaan aynaan waxayba meel lagu as dadkii oonu qorsheyn kala weynay yana waa dhibaato taala waxaanu samayn doonaa marka wixii ka dambeeya dowladda hoose iyo wasaaradda horumarinta dhulku dixoonteedu si dhow wada shaqeynaya si dhow oo isla og yihiin waxay qabanayaan iyo qorshaha ay leeyihiin ayaynu qabanaynaa waayo dowladda hoose ee hargeysa waxay ka mas-uul tahay hargeysa deegaankeeda dowladda hoose ee berberina ta berberi ka mas-uulta ta burcana ta burco haddii aanu jirin santara dhexo isku kin xidhaya oo kao dhan isku ilaalinaya dee nin waliba intiisu bu ku fooraya markaa tii dhexee qarankaa lumaysa magaalada keliga socon mayso qarankii baa dhulkii saynu dhahaa waana isku xaydhnaa ka qarankaa horta leeyahay number one kulasaa loo qarankiisaa loo daadishay waa tanaga dhiman waxaan kusoo kobay waa idin bogaadinaynaa waa idinku bogaadinaa hawlaha qabateen waa idinna xilka haysaan canaanta iyo dhalisha laisku hadana waanu idiin ognahay oo in gardarro ah iyo in runaba leh bini aadam baynu nahay dalkeenu u shaqaynaa qof kastoo xil aya u gafaya wixii lagaa filayo wax ka yar baad qabanaysaa qof walba marka doorre waxa laga filaya in mushkiladoo dhan xalilayo ma xalili karaayo qofku laakiin waa inuu qayb xalila marka inaad dadaalaysaan oo hawl badan qabateen waa idinku bogaadinaa waa idin ognahay in badan oo idin dhalinaysaa inayd ka gafaysana waa ognahay hawl iyo dhalina waa inoo taallaa waa inanu saxnaa waa inaan idan dhaa ka qarsan waxaan idinku bogaadinayaa hawlaha soo qabateen waxaan idinku bogaadinaya shirkiinii shalay ee miisaaniyaddii nii ku baaskarayseen waxaan idinka rajaynaa wada shaqayn gudihiina ah adeeg aa u shaqaysaan magaaladiin dooratay oo ila berita doorashada waa heli doontaan wakti kala timaadee doorashada la soo noqonaya dadkii mar labaad hortegaya inaad taana ka dadaashana tallaabooyinka imika qaadeen iyo qaar kasii wanaagsan qaadaan annagana waxaa naga filaysaan inaanu iskii garab taagno inaanu la shaqayno inaanu gacan qabow oo wanaagsan idinkula shaqayno aanu adii bala qaadayna dhammaan idinka iyo xubnaha kale dowladdaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ballanteennu waa qorshe aasaynu fulino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu